ciidamada booliska Somaliland ayaa rasaas nool u adeegsanaya ama la dhacaya qaar ka mid ah shacabka Jamhuuriyadda Somaliland ku dhaqan degmada Axmed Dhagax gaar ahaan xaafadda Siinay sida idiga muuqata shaashada. dulmiga tacadiga taagtaagsiga maatida waxa uu calaamad iyo sumad u yahay burburka dawladnimada iyo deegaanka sida uu sheegay aqoonyahanka qoray cilmiga bulshada Cabdiraxmaan ibn Khalduun oo ku sheegay kitaabka uu qoray ee ah diiwaan al-mubtada wal khabar fi taariikh al-arab wal barbar wa man asrahu min dawi shan al-akbar oo ku yiri anna dhulm mudin bi kharab al-umran dulmigu waa digaha burburka dawladnimada iyo deegaanka. haddaba shacabka Jamhuuriyadda Somaliland idilkood oo kacdoon iyo gadood ka muujiyay shirkadaha isgaarsiinta adeegyada ay bixin jireen oo koboc iyo koror ku sameeyeen ayaa qaar ka mid ah shacabka Somaliland isku soo baxeen degmada Axmed Dhagax gaar ahaan xaafadda Siinay kuwaasi oo labada isku laabay labada xarumood ee shirkadda Telesom iyo Somtel ay ku lahaayeen xaafadda Siinay. kadibna waxa goobtaasi soo gaaray ciidamada booliska Somaliland oo rasaas nool la dhacay una adeegsaday shacabkii ka gadooday ama ka mudaharaaday dulmiga iyo tacadiga ay ka tirsanayeen shirkadaha isgaarsiinta Telesom iyo Somtel. boqolkiiba 4 shacabka Somaliland oo la filayay inay barbarkeeda noqoto xukuumadda shacabka Somaliland ayaan gabi ahaanba si cad u barbar istaagin shacabkii boqolkiiba 4 codkooda siiyay shirkadaha isgaarsiinta iyo Telesom ayaan mar iyo lababa ahayn inta ay sameeyeen koboc iyo koror ay ku kordhiyeen adeegyadii ay bixin jireen kuwaas oo ay shacabku hore uga aamuseen balse maanta ay go'aan ku gaadheen inaanay ka aamusin. xogahana helayno ayaa ay sheegayaan inaanay jirin wax dhimasho ah balse ay jiraan dhaawac wixii waradhay ka soo kordhay kacdoonka ay shacabku kaga soo jeedaan shirkadaha isgaarsiinta